waxaan xasuustaa bari qaaradda North America annagoo joognaba nin Soomaaliya ayaa la noogu sheegay meel tuulo aad u fog markaasaan gurigiisa ugu tagnay markaasuu yaabay xageed ka timaadeen oo dhulkii baan ka imanay Djibouti iyo marka maxaa soo doonteen waxaan dadkan muslimiinta ee wadankan soo galay baan soo booqano soo ziyaaranay marka jamaacadii intii kale masaajidka bay joogaan waxaan rabnaa inaan naya raacdo oo jamaacada inta kale aad soo salaanto oo suuraysataan oo dalkii bay ka yimaadeen ay kaaga waramaan tabu marka isagu xiiseynayay dadka qurbaha jooga markaad u tagto haddaad tiraahdo waan ku wacdina wacdi dhageyso waxa laga yaabaa 80% inay ka baxsadaan laakiin markaad tiraahdo wadankii baan ka imanno warbixin baan kaaga sidnaa u xiiseynaya wadankii una soo raacay waa taqaanaa Soomaalidu waa iska qoyso waa la is wareystay waa la is gartay marka dad isaga qaraabo yihiin ayaa niman nala socdo bay is garteen markii daba isagii la wareystay waa nin daadiisa lagu qiyaasay aan ku qiyaasnay 62 jir meelahaas u ahaa markaas wadankii marka la joogay dawladii ay jirteen nin wax yaqaano waa la yaqaano nin aad tacliinta maadiga u yaqaano buu ahaa markaas sheekhi bay wada kaftameen oo wuxuu ku yiri sheekh Ismaaciil Ilaahay ku naxariisto wuxuu ku yiri war wadankii barigu jiray dawladii nin wax yaqaanaad ahayde aqoontaadii halkan ma ka shaqaysaa ma kama shaqaysaa buu yiri maxaad qabataa buu wuxuu yiri jaamacad baan iska galay buu waxaan qabtay markaan waayay jaamacad baan dhigtaa buu yiri maxaad barataa buu yiri marka hore aqoon kuma dhinayni wuxuu yiri xiriirka dawladaha dariska ka dhaxeeyaan bartaa buu yiri markaas uu ku yiri adiga iyo Ilaahay xiriirka naga dhaxeeya ma barataa buu ku yiri markaas uu yaamay jaamacadda aad dhigato xiriirka bani aadanka iyo Allahii abuuray ka dhaxeeya ma lagu dhigaa markaas uu yiri wallahi billaah lagu ma dhiga buu yiri والله قوم دقها وهجاك تعليم تن أدبرني سيدي قول دوري الحدن جرأة قرب ما تكون شقين دون تابل شك وحنو أرجنا باللجوي إن هذا وقت اللومس كجرت وقت اللومس حداد أذيقة أو دوري الحدن جرأة حرير كأذيق يا إلهي نيد حي أنا أدبرني صلاة متوكتا أحد ديبان هلا المسكيت كسوق قريب كان أنت كلو دنا ما بتوكده بودي قالوا كل حجرة يهود بالله دجنانكو وهلا توله يهود وايد دجنتها والحدي أديكوا بعد برن حرير كأدي إلهي نيد حيا كوة شام عدا كودي جاي بروفيسور دونا أينن أقونين حرير كأيك إلهي ود حيا الدون كان يا آخر وايد تعب خسارين بالوجود كالمدة مركز شام عدو أيلاذ هاي waxa laga yaabaa si yar oo basiid inaad u tiraado laakiin qofku markuu Ilaahay dartii u socdo dhaqaale uu diin ku bixiyo danihiisa Ilaahay dartii uga tago hadalkiisa Ilaahay saameyn buu galiyaa waa nala casheeyay ninkii gaariba markii gaarigiisu iska qaatay gurigiisii buu ku noqday salaadii fajr isaga socda miskiidka noogu yimid wuxuu uriyaada hadalkaad xalay igu tiraadeen shalay galabtii waa ka saxan kari waayay buuri وافكري ما ندوري اللي حدن جرا أي أحد مسكيت كسوة هلالا درين وحى يقول الشيء بودي أنا يقول هذا صدا كل أنت هنا خساري كوا جامعة النور دقينا خسارة علينا كجرا ما نركب بودي هل كيبوني كتوان عش جامعة دي كراعي ألا بتنتو صوتات كلمة دتكم ما أنت ولا ليال وحنوبة هنهاي إن دتك إنكنا إلهي أن كوا كحدا أن نقرنا دتكنا إلهي أن كحدنا وحن وحبرنا إنه وأنت سويان هذا يقول إلهي كحدنا دتكنا إلهي كحد سد حدن بعد دينتنا مركب علماء ويفسرين سورة العصر العلم والعمل والدعوة إليهما لبوا وصيله ويان دعوة دي تعليم توا وصيله غايه وعبادته ويان
maxaan dadka xagga ilaahay aan ugu yeeraynaa waa in dadku ay cibaadaystaan waa in dadku ay tukadaan waa in dadku ilaahay ku xidhmaan waa in dadku ilaahay raalli geliyaan maxaan wax u baranaynaa innakuna inaan cibaadadeenna aan saxno dadkana aan idhaahno warkaalada ilaahay sidaan u caabuda labadaasi dacwadda iyo tacliinta bay culimmadu leeyihiin waa wasiilo gaayuhu waxa weeyaan waa cibaadadii waata ilaahay uu nebiyada uu ku ammaanay nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam markuu ilaahay ammaanayay waxaa lagu ammaanay inuu yahay addoon ilaahay cabdiyad baa nebiga lagu ammaanay alcubuudiya subxaana aladii asraa bicabdihi baa layidhi addoonkiisii innamaa ana cabdullaahi warasuuluhu buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam aakulu kamaa yaakulu alcabdu wa ajlisu kamaa yajlisu alcabdu buu nebigu uhi markii la yidhi xeedhii nebigu cuntada uu ku cunaayey ee la odhan jiray algharaa afar nin baa xeedhan soo qaadi jirtay baa layidhi markaasaa nebiga loo keeni jiray masjidka dhexdeeda isagoo fadhiya markaabaa dadka musaafiriinta iyo dadka ahlu sufaha iyo martida masjidka nebiga joogta intay ku soo ururaan ayay nebiga xeedha ayay nebiga gacanta la gelin jireen isagana nebigu gacanta intuu ku bilaabo bisinka ugu bilaabi jiray markaa buu odhan jiray kuluu min xaafiyatayha wadacuu dirwataha yubaarak lakum fiiha buu nebigu odhan jiray xeedha hareeraha ka qaadqaata cuntada baarkeegana ha ka taabanina buu nebigu odhan jiray bisinkana u qabta ilaahay baa nii barakayne maalin maalmaha ka mida markay dadka xeedhii ay ku soo buuqeen ayuu nebigu kadaloob buu ku fadhiistay kadaloob markaa nin reer baadiya nebiga ku yidhi yaa rasuulallah ma sidaa addoommahaad u fadhiisanaysaa maanta waa sidee wuxuu yidhi aniga ayaa iga addoonnimo mudan buu ku yidhi ina allaha jacalanii cabdan kariiman walam yajcalnii jabbaaran caniidan buu nebigu yidhi aniga rabbigay wuxuu iga yeelay addoon deeqsiyo oo deeqsinimo badan ilaahay jalla wacalaa igama yeelin buu yidhi mid jabbaara oo kibir badan oo dabeecad qallafsanna ilaahay aniga igama dhigin buu yidhi marka addoonnimadu waa maqsuudka dhan ee qur-aanka loo soo dejiyey ee nebiga loo soo diray ee kutubta ilaahay u soo dejiyey ee shareecadda dhan loo baranayo waa maxay waa inaan noqonno addoommo ilaahay oo ku caabuda maaragtaana ilaahay calaa cilmin ciisa bnu maryam calayhi salaam markuu hadlay uu yaraan ku hadlay